بسم الله الرحمن الرحيم waxay noo socday casharkeeni Englishka ahaa gaar ahaan grammarka waxaynu ku jirnay waxa weeyaan tanisyada ayaynu ku jirnay marka tanisyadu waa 12 tanis 12 kaasi tanis waxa weeyaan afar waxay ka hadlayaan past afarna waa present afarna waa future marka afartii past-ka ahayd hore noo soo qaadanay afarta present kana maanta inuu qaadan doonaa future kuna noo soo socda hadda waxa weeyaan waxaynu bilaabi doonaa insha Allah casharkeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa present tenses keenu ka hadli doonaa yani tanisyada ka hadlaya present-ka marka tanisyada ka hadlaya present-ku waxa weeyaan waa afar tanis weeyaan waa simple present iyo present continuous iyo present perfect iyo present perfect continuous marka afarta tanis ba waxay ka waramayaan waxa weeyaan present-ka past-ka waynu soo aragnay future-kana waynu arki doonaa markaasi insha Allah waxa weeyaan hala la socdo marka tanisyada present-ka waxa ugu horeeya simple present tense ba ugu horeeya simple present tense is used waxa loo isticmaalaa for action dhacda loo isticmaalaa which happens taasoo dhacda every day maalin walba yani simple present tense-ku waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa marka laga hadlayo dhacda maalin walba wax dhaca maalin kasta wax dhaca oo maalin walba dhaca marka laga hadlayo ayaa waxa la isticmaalaa simple present tense baa la isticmaalaa marka simple present tense is used waxa loo isticmaalaa for action dhacda loo isticmaalaa which happens taasoo dhacda every day maalin kasta formula hadaba leeyahay formuladiisu waa subject plus verb plus object hadaba waxa weeyaan subject baa loo geyn doonaa verbkina waxa loo geyn doonaa object marka verbka ayaa wuxuu u baahan yahay in yaroo rules ah horta tenniskani waxa weeyaan simple present tenniska waxa weeyaan waa tenniska ugu adag markaasi 12 ka tennis wax kale maaha waa rules yar bulay xeerar yar bulay markaasi xeerarkaasi waxa kamid ah wax magacyada waxa weeyaan aan jamac ahayn iyo magacyaalada wax weeyaan aan jamac ahayn ficilkooga waxa la raacinayaa es ama s baa la raacinayaa yani xeerkaas jira xeerkaasi waxa weeyaan magacu haduuna jamac ahayn uu kaliya yahay wax kaliya laga hadlayo ama pronoun ha noqdo ama noun ba ha noqdee hadii uu waxa weeyaan uu wax kaliya ka hadlayo es baa la raacinayaa ficilkiisa ama s tana waxa la raacinayaa iyadana shardi kale iyadu leedahay ficilkaasi xarfihiisa hadii ay ugu dambeeyaan waxa weeyaan xarfaha halkan noogu qoran xarfaha dhinaca noogu qoran ch iyo hakad sh hakad dhamal s o iyo x hadii waxa weeyaan ficilkooda ay u dambeeyaan ch iyo sh iyo dhamal s iyo o iyo x hadii ay u dambeeyaan es baa la raacinayaa waa kuwee markaasi kuwaas waa magacyada kalikelida ama magacyaalada kalikelida marka laga reebo waxa laga reebayaa kuwa jamaca baa laga reebayaa magacyaalada jamaca iyo magacyada jamaca baa laga reebayaa marka xeerka ayarun baa jira esta iyo estaasi oo he iyo she iyo it hadii wax weeyaan ficilkooda uu waxa weeyaan ch ama sh ama dhamal s ama o ama x haduu u dambeeyo es baa la raacinaya haduu u dambeyn waayo intaasina s kaliya la raacinaya marka es iyo s baa la raacinaya oo tana xarfahaasa loo eegaya marka ta la raacinayo meesha ch waana u dambeysaa c kaliya maaha h kaliyana maaha ama waa inay sh u dambeysaa
s kaliya maaha, h kaliyana maaha, dhamal s waa inay tahay, s kaliya looma baahna, ama waa inay o tahay, ama waa inay egas tahay. haddii intaas u dambaysuba es la raacinayaa, haddii ay u dambeyn weydeen taasina s kaliya loo raacinaya. haddii waxa weeyaan haddaba ka waran kuwa jamaca, ka waran magacyada jamaca iyo magacyaalada jamaca see la yeelaya iyaga. yacni iyaga waxaa la samaynayaa ficilka sidiisa la iskaga daynayaa, ficilka waxbaba laguma samaynayo, infinitive-kiisa lagu daynayaa. yacni ficilku markuu sidiisii yahay uu caafimaad qabo sidiisi baa lagu daynaya. es shayba laguma darayba, waxbaba ficilka laguma darayo. marka haddii magacyadu ay yihiin simple present kana ku jirnaa, haddii magacyadu yihiin waxa weeyaan jamac ama pronoun-ku dee uu jamac yahay, ficilka lama taabanayo, infinitive-kiisa lagu daynaya sidiisa caadiga. marka magacyada jamaca iyo magacyaalada jamaca markaan leeyahay, yacni magacyaalada jamaca markaan leeyahay waxaan ujeedaa daydii. horta magacyaal marka lagu leeyahay waa day iyo we iyo you iyo I iyo she iyo he iyo it. marka haddaba magacyaalada qaarna waa jamac maaha, qaarna waa jamac. kuwa markaa jamacii waxaa ka mid a you-da ka mid a, daydaa ka mid a, iyo we-daa ka mid a. waxa markaa la xeer noqonaysa uun ayda marka aduu iska hadlayso, markaa unbaa la xeer noqonaysa oo xagga raacas xagga jamaca. laakiin she-da, he-da iyo it-ta iyaguna waxa weeyaan yacni maaha jamac. haddaba waxa weeyaan exampleska aynu eegno. Ahmed goes home every day. Ahmed wuxuu tagaa guriga maalin walba. Ahmed goes wuxuu tagaa home guriga every day maalin kasta. I see waxaan arkaa him isaga every night habeen kasta. I see waxaan arkaa him isaga every night habeen kasta. She drinks waxay cabtaa milki caanaha every day maalin walba. She iyadu drinks waxay cabtaa milki caanaha every day maalin kasta cabtaa. Ahmed goes home every day. haddaba eeg Ahmed waa simple present, ficilkii baa ugu dambaysa es baa la raaciyay. markaa goodii ficilka halan ku jiraa waa go. Ahmed goes goodii baa es la raaciyay. es-tani waa xeerka, ficilku ma wato, ficilku waa go. markaa es-na waxa weeyaan waxa wata magacanaan jamac ahayn oo waxa weeyaan magac keliya ah, waa keli. Ahmed waa nin keliya. go halkii la odhan lahaa es baa la raaciyay. marka waa taa. laakiin aydu iyadu waxay raacaysaa, iyadu way ka duwan tahay. saddexdan iyadu kuma jirto, he iyo she iyo it kuma jirto. iyadu markaasi ficilkeedu sidiisii caadiga ahaabaa loogu daynaya, iyada lagama taabanayo. markaa I see waxaan arkaa him isaga every night habeen walba. laakiin sheedu iyadu waa halkan inoogu jirtaa. sheed iyadu waa magacyada kelikelida. she waa iyada, yacni qof keliya laga hadlayaa soo maaha. drinkidii s baa la raaciyay. she drinks milky every day. yacni sta waxaa loo raaciyey es baa la raacin lahaa eg, ama es baa loo raacin lahaa ama s. saddexdan he iyo she iyo it ficilkooga ama es uma la raaciya ama s uma la raaciya simple present-ka. haddaba tan maxaa esta loo raaciyey? waxaa loo raaciyey esta waxaa loo raaciyaa shardi baa loo eegaa ch iyo sh iyo dhamal s iyo o iyo egas waa inay ugu dambaysaa ficilkooda. haddayna ugu dambaynin s keliya unbaa loo raacinaya iyaga. marka esta unbaa iyo shardi ku xidhan. markaasi waxa weeyaan simple present-ku waxa weeyaan waa tan iska hadlaya wax maalin kasta dhaca. cadceedu maalin kasta way soo baxdaa, maalin kastana way dhacdaa. iskuulka maalin kastaan tagaa, tusaale ahaan maalin kasta waan tukadaa. saasoo kale wax maalin walba dhaca. hebel maalin kasta wuu tukadaa, hebel maalin kasta iskuulku tagaa, hebel maalin kasta heblaaya maalin kasta way shaqaysaa. wax maalin walba dhaca weeyaan simple present-ka. markaad doonayso heblaaya maalin walba way shaqaysaa, markaad doonayso inaad tidhaahdo
ama markaad doonaysa inaad tiraahdo heblaa iyadu caanay cabtaa maalin kasta markaad doonaysa inaad tiraahdaad isticmaalaysaa taniskan. intaasaynu uga baahanay markaasi waxaan waa xeerana intaasaynu uga baahanay markaan doonayo qof inaan idhaahdo heblaaya maalin kasta caanaha cabtaa oo caanay cabtaa maalin walba markaan doonayo inaan idhaahdo luqadda ingiriisiga dee waxaan u baahanahay simple present tense inaan garanayo haddii kale ma odhan karayo dee heblaayo maalin kasta caanay cabtaa dee waxaa loo baahan yahay inaad taqaano simple present tense waayo dee ficilkii ma s baa la raacinaya ma s baa la raacinayaa sidee qofka haddii kale wax kale uu iska raacinba iyadoon loo baahnayn haddii una garanayn laakiin hadduu garanaya markaasi uu saxaya. simple present tense-ka marka question laga dhigayo ama negative laga dhigayo iyaduna waxay leedahay xeerkaasi waxaa la isticmaalayaa auxiliary ayaa loo isticmaalaa. auxiliary-yada loo isticmaalo waxaa ka mid ah do iyo das baa ka mid ah. marka hadalkii caadiga ahaa positive-ka ahaa markaad question ka dhigto ama aad negative ka dhigto waxaa la isticmaalayaa do iyo das. haddaba bal hadalka caadiga balaynu eegno. iminka waxaa layna yidhi Ahmed goes home every day. Ahmed wuxuu tagaa guriga maalin kasta. ayuu Ahmed guriga tagaa. I see waxaan arkaa him isaga every night habeen walbaan arkaa. marka Ahmedkii waxaad ka horeysiinaysaa das baad ka horeysiinaysaa maadaama isagu keli yahay. dasta marka waxaa qaadanaya inta kelida magacyada kelida waa qaadanaya. dasta waxaa qaadanaya magacyada kelida Ahmed oo kale ayaa qaadanaya magac keliya. haddii iminka he la yidhaahdo ama she la yidhaahdona waa la mid. waxa qaadanaya markaasi magaca kelida magacyada kelida ama magacyaalada kelida baa qaadanaya. sheeda iyo ita iyo heedu waxay qaadanayaan das iyo wax kastoo magaca oon jamac ahayn oo keliya das bay qaadanayaan. ayda iyo yuuda dayda iyo weyda iyo magac kastoo jamaca waxay qaadanayaan do. marka waxaad oranaysaa does Ahmed go home every day baad oranaysaa. Ahmed maalin kasta calaamad su'aal aad raacinaysa. does Ahmed go home every day. Ahmed maalin kasta ma gurigu tagaa. do I see him every night. maalin walba isaga habeen walba isaga maan arkaa. habeen walba isaga maan arkaa. marka hore waxay I see waxaan arkaa him isaga every night habeen walbaan arkaa. iminkana waxay noqonaysaa do I see him every night. markaynu doonno inaynu ka dhigno negative diidma markaynu ka dhigno dafiraad waxaynu odhanaynaa Ahmed does not go home every day. Ahmed gurigaba muu tegin. guriga ma tago maalin walba. Ahmed guriga ma tago maalin walba. Ahmed does not go home every day. Ahmed guriga ma tago maalin walba. I don't see him every night. ma arko isaga habeen walba isaga ma arko. markaasi negative-kiisa iyo waxaan u jeedaa question-kiisaba dhuudaya dhastaasaa la isticmaalaya. taniska labaad ee xagga barasanada wuxuu noqonayaa present continuous tense buu noqonayaa. present continuous tense waxaa laga hadlayaa wax iminka socda oo iminka dhacaya laga hadlayaa. present continuous tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action dhacda loo isticmaalaa happening taasoo dhacaysa at the moment hadda iminka waqtigan waa dhacdo xaadira. present continuous-ka is used waxaa loo isticmaalaa for an action dhacda loo isticmaalaa happening taasoo dhacaysa at the moment waqtigan aan ku jirno. formuladiis waa subject plus is ama are ama am plus verb plus ing plus object. subject-kiiba waxaa la raacinayaa is ama are ama am kolba midkii ku habboon baa la raacinayaa.
plus verb verbkiina waxaa la raacinayaa ing plus object wey. istan iyo artan iyo amtani waa auxiliary. auxiliaryadani haddaba sidee loo kala isticmaalayaa? aid waxay qaadanaysaa am bay qaadanaysaa marka aad iska hadlayso. istana waxaa qaadanaya magacyada kelikelida iyo nounka waxa weeyaan nouniska kelikelida iyo waxa weeyaan pronouniska kelikelida ah. nouniska kelikelida waxaa kamid ah axmed baa kamid ah, nimca kamid ah, hinda kamid ah, maxamed haddii la yidhaahdo kalaa kamid ah. magac dee yacni magac keliya axmed imika nin keliya unbaa laga hadlayaa soo maaha. laakiin magacyaalada kelikelidana waxaa kamid ah she baa kamid ah, he baa kamid ah. yacni waa magacyaal keliya qof keliya laga hadlaya. marka yacni dee aidunbaa iyadu auxiliary gaar iyadu leedaho aidu am ba iyadu leedahay, iyadu ma raacaysa kuwan. laakiin ista waxaa qaadanaya magac kasta oo keliya oon jamac ahayn. yacni magacuyaalku hadduuna jamac ahayn isaguna lamid buu noqonaya. oo imika he is baa la odhan lahaa, heedu is bay qaadanaysaa waayo waa magac wax keliya laga hadlaya, waa isaga un weeyaan. sheeduna is bay adna qaadanaysaa oo waxa weeyaan dee waa keli. sababtu waa taa sababta is loo raacinaya. hadday laakiin noqon lahayd jamac r baa la raacinaya. they are iminka haddii la yidhahdo they are, daydu dee wax badan baa laga hadlaya marka r baad u baahan tahay inaad meesha keento. rtu jamac weeyaan, waa auxiliary muujinaya jamac. meesha haddii r ku jirto yacni jamac baa laga hadlaya. haddii is ku jirtana meesha is taalo shay keliyun baa laga hadlaya. marka tusaalehaynu eegno. axmed ninka la yidhaahdaa isgowin wuxuu tegayaa home, guriguu tegayaa now iminkuu guriga tegayaaba hadda. they are iyagu helbin waxay caawinayaan my mother hooyaday at the moment, iminkay caawinayaan hadda ayay caawinayaan. they are iyagu helbin waxay caawinayaan my mother hooyaday at the moment, iminkay caawinayaan. daydu iyadu waxay ahayd maadaama ay jamac tahay they are, day iyagu mar haddii layidhi r baa la raaciyey, helbidii ficilkiina anji baa la raaciyey. yacni waaba intaaba. axmed maadaama magac keliya yahay waxaa la raaciyey wax weyn oo wax badanaa laga hadlayn, is baa la raaciyey. goodiina anji baa lagu daray oo goodu ficilku ahayd markaa anji baa lagu daray. present continuous tenniska marka question laga dhigayo ama negative laga dhigayo auxiliary buu leeyahay oo fudud yahay kani, markaasi kuma raagayno. hadduu auxiliary leeyahay auxiliarygun baa la horreysiiyaa kadibna calaamad su-aal unbaa la raaciyaa. yacni markuu yahay positiveka wuxuu ahaa axmed is going home now, axmed wuxuu tegayaa guriga imika ayay ahayd. marka istun baad horreysiinaysaa, waxaad odhanaysaa is axmed going home now, axmed ma gurigu tegayaa imika. they artun baad horreysiinaysaa, calaamad su-aal lood ka dambeysiinaysaa. halkanna istin baad horreysiisay, kan kalena yacni auxiliary hadduu tennisku auxiliary leeyahay questionkiisa auxiliarygu baa la horreysiiyaa oo subject lagu horreysiiya, calaamad su-aalna waa la keenaa meesha ugu dambeysa la dhigaa. negative markaad ka dhigaysana auxiliarygiisumbaa not la raaciyaa. yacni tennisku hadduu auxiliary leeyahay in question laga dhigo iyo in negative laga dhiga ba iska fududahay, auxiliarygun baad eegaysaa. hadduu auxiliary leeyahay marka su-aal ka dhig lagu yidhaahdo tenniskio sidiisii u yaala ama tenniskio sidiisii u yaala unbaad auxiliarygun baad horreysiinaysaa oo subjectka ka horreysiinaysaa. marka hore axmed is bay ahayd moogtahay, is baad oranaysaa, is axmed bay noqonaysaa imika. halkii ugu dambeysana waxaa la dhigayaa calaamad su-aal. day rt waxaa laga dhigay rday, rt baa lasoo horreysiiyey. rt maxaa lasoo horreysiiyey waa auxiliary. su-aal markaad keenayso inaad auxiliaryga horreysiisaa. marka negative laga dhigayana auxiliarygun baa not la raaciyo, waxaa la odhanaya they are not helping my mother.
tenniska saddexaad waa present perfect tennis. present perfect tenniska waxaa loo isticmaalaa yacni markaad doonaysa inaad ka hadasho dhacdo imikadan dhammaatay, imikadan yar dhacdo dhammaatay markaad doonaysa inaad ka hadasho ayaa waxaa la isticmaalaa present perfect tennis. yacni imikuunbay dhammaatay, imikadan yar. present perfect tenniska is used waxaa loo isticmaalaa for an action dhacdo which has taasoo just completed imikuun dhammaatay, which has just completed taasoo imikuun dhammaatay. marka formuladiisu waa subjectkii auxiliary buu leeyahay kani, subject plus half iyo has. subjectka waxaa la raacinayaa half ama has, kolba kii ku habboon baa la raacinayaa, plus past participle plus object. ficilka waxaa laga dhigayaa past participle. ficilku wuxuu ahaa 3 weji, mid present iyo mid past iyo mid past participle. ficilku 3daa weji buu leeyahay. ficil haddaad aragto ama waa present ama waa past ama waa past participle. markaasi kani waa wejigiisii saddexaad weeyaan. ficilka wejigiisii saddexaad buu tenniskani qaadanayaa. wax tenniskan la yidhaahdo present perfect tennis ficilkiisu waa wejiga saddexaad ee ficilada. markaasi auxiliary-ga haddaba see loo kala qaadanaya. auxiliary-giisu waa half ama has. se loo kala qaadanayo baa muhiima. haasta waxaa qaadanaya magacyada ama magacuyaalada aan jamac ahayn ee mufradka ah ayaa qaadanaya. halftana waxaa qaadanaya wixii jamaca. waaba intaaba. marka auxiliary-yadu de waxay ku xidhan tahay jamacba ama mufradba magacu, yacni subjectka ayaa la eegayaa horta. subjectkani waa maxay? ma qof keliya? ma wax badan baa? markaasaa loo eegi karaa markaa midku qaadanayo. axmedkani waa nin keliya, markaa haas baa la raacinaya isaga. waa sidaa. ficilkana waa gan ayaa laga dhigayaa. axmed has gan home. axmed wuxuu tegay guriga, yacni imikadan buu tegay. axmed guriguu tegay. waa sidaa. yacni imikadan buu guriga galayba. wax shalay buu galay maaha, daraad buu galayna maaha, imikadan yar buu galay ayuu guriga tegay. markaa goodii gan bay noqotay. good waa ficil wejigiisa saddexaad baa laga dhigay. daydu maadaama ay tahay day waa iyaga soo maaha, waa jamac. jamacii markaasi half baa la raaciyay. waxaa la odhanayaa they have helped my mother. iyagu waxay caawiyeen hooyaday. imikadan yar bay hooyaday caawiyeen iyagu. waa saa macnaheedu. markaa daydu maadaama ay jamac tahay half baa la raaciyay. helbidiina waxaa laga dhigay helbid oo waa past participle. helbiga marka yacni ficilka helb marka past participle laga dhigayo waa helbid uun. baaskiisuna waa helbid uun, laakiin deemku waa past participle wejigiisa saddexaad weyn. markaasi waa intaasun. tenniskani intaan buu ka hadlayaa. haddaba waxa weeyaan marka la doonayo marka laga dhigo marka question ama negative laga dhigo present perfect tenniska marka la doonayo in hadalkiisa positive-ka in question laga dhigo ama negative laga dhigo, yacni wuxuu ka hadlayay waxa weeyaan dhacdo imikadan yar u dhammaatay. markaa dhib ma laha inaad question ka dhigto hadalkiisa, hadalka positive-ka caadiga inaad su-aal ka dhigto iyo inaad negative tafiraad ka dhigto way iska fududahay. hadalka caadigu wuxuu ahaa tusaalaha caadigii axmed has gone home. axmed guriguu galay ama guriguu tagay. they have helped my mother. iyagu hooyadii bay caawiyeen. yacni imikay hooyadii caawiyeen weeyi. markaa auxiliary buu leeyahay. auxiliary-giisu waa has ama half. markaa auxiliary-gun baa la horreysiinayaa marka su-aal laga dhigayo. calama su-aalna waa lagu xigsiinayaa. negative markay tahayna aad doonaysa inaad ka dhigtana auxiliary-gun baa not la raacinayaa.
wax kalaba la iskuma waalayaba wax kale la iskuma kadeedayba. markaad doonayso inaad question ka dhigto auxiliary-gun baa la horreysiinayaa subject laga horreysiinayaa oo waxa weeyaan calaamad su-aalna waa la keenayaa markaad doonayso inaad tafiraad ka dhigtana auxiliary-gun baa not la raacinayaa. has Ahmed gone home kala doonaysa markaad su'aal ka dhigayso. markaad tafiraad ka dhigayso waxaad doonaysaa Ahmed has not gone home. Ahmed guriga muu tagin ay noqonaysaa. taniska afraad afartii barasanka ahaa waxa weeyaan kanee noogu dambeeya. kan ugu dambeeya afraad waxaa la yidhahdaa present perfect continuous baa la yidhahdaa. haddaba waa maxay present perfect continuous? yacni waa dhacdo waxa weeyaan socota intay waqti baasa intii bilaabantay ayay ilaa imika socotaa. waa dhacdo bilaabantay waqti baas ah oo ilaa imika socota ayaa waxaa la yidhahdaa present perfect continuous. haddaba present perfect continuous is used waxaa loo isticmaalaa for an action dhacdaa loo isticmaalaa which has taasoo started bilaabantay in the past waqti baas ah and still ilaa imikana continue socota. present perfect continuous is used waxaa loo isticmaalaa for an action dhacdo which has taasoo started bilaabantay in the past waqti laga yimid and still ilaa haddana continue socota ilaa haddana socota. waqti laga yimid ay bilaabantay ilaa hadday socotaa. markaad doonaysa dhacdo waqti hore bilaabantay oo ilaa imika socota markaad doonayso inaad ka hadasho waa inaad taqaano present perfect continuous ood xeerarkiisa taqaano. iminka haddaad odhanayso wax weeyaan dagaalkani shalay buu bilaabmay ilaa maanta u socdaa, ama haddaad doonayso roobkani wuxuu bilaabmay saaka ilaa imku da-aya, yacni waa dhacdo bilaabantay waqti hore ilaa imkana way socotaa. formuladiis wax weeyaan subject ayaa waxa lagu darayaa half ama has kolba midkii ku habboon. haddaba waxaa lasii raacinayaa been auxiliary-giisu waa half iyo has plus been baa lasii raacinayaa plus verb baa la raacinayaa plus ing baa la raacinayaa plus object baa la raacinayaa. markaa subjectgii aad taqaanay waxaa la raacinayaa half ama has oo auxiliary-a. auxiliary-gii been baa lagu raacinayaa verbkiina ing baa lagu raacinayaa. markaa qaacidadiisu waa intaa. tusaalaha aynu eegno. Ahmed has been going home since his birth. Ahmed has been going Ahmed wuxuu tagayay guriga. Ahmed has been going home Ahmed wuxuu tagayay guriga since ilaa his birth ilaa dhalashadiisii gurigunbuu tagayay. gurigunbuu ku socday ilaa markuu dhashay. waa sidaas. They have iyagu been helping waxay caawinayaan my mother hooyaday for 10 years. yacni 10 sano hooyaday caawinayaan iyagu ilaa 10 sano way caawinayaan oo sanado badan bay soo caawinayaan ilaa imkana way caawinayaan. They have been helping waxay caawinayaan iyagu my mother hooyaday for 10 years 10 sano for 10 years 10 sannadood ayay hooyaday caawinayaan iyagu. markaasi dee tusaaluhu markaasi waa sidaa. markaa auxiliary-gii maxaa lagu raaciyay been, ficilkiina ing baa lagu raaciyay. markaa wuxuu waa inuu yahay wax mar hore bilaabmay oo ilaa imika socda. markaad doonaysa inaad ka hadasho yacni markaad aad leedahay waxaan hooyadii bay caawinayeen ilaa 10 sano, yacni 10 sano ka hor bay soo bilaabeen inay hooyadii caawiyaan ilaa imkana way caawinayaan wey. ninkan Axmedna wax weeyaan gurigunbuu tagayaa ilaa markuu dhashay dee gurigaanbuu kolba tagayaa. gurigaaba kama dhammaanayo yacni waa sidaa. waa wax mar hore soo bilaabmay markaad doonaysa inaad ka hadasho ilaa imika socda.
ayaad present perfect continuous uga baahantay. tanisyadana markasta waxaad uga baahantahay yani markaad luqadda English ku hadlaso markasta hadalka saad u dhigaso iyo waxaad ka hadlaso iyo auxiliary-ga isticmaalayso ayaa muhiima. waxaan grammarka lagu falayo ee tanisyada loo sameeyay waa sidaa. yani markaan doonayo imika inaan ka hadlo dhacdo saaka bilaabanto ilaa imika socota dee waa inaan present perfect continuous garanayo. taniskaasi waa inaan garanayo. haddaba waxa weeyaan present perfect continuous question ama negative marka laga dhigayo auxiliary buu leeyahay way iska fududahay. tanisku mar hadduu auxiliary leeyahay question iyo dafiraad baa laga dhigi karaa. haddaba hadalka positive ka baan doonayna inaan question ka dhigno ama dafiraad aan ka dhigno. positive waa hadalka caadiga. positive waa sida caadiga hadalka caadiga aad ku hadlayso weeyaan. questionna waa hadalka su-aasha ah. negative-na waa hadalka dafiraad ee diidmada ah markaad wax diidayso ee leedahay waxaa ma sameynin ama waxaa muu sameynin ama halkaa muu tegin ama sidaa muu yeelin markaad leedahay negative waa sidaa. question haddaad maqashana waa su-aal qof baad su-aal marka su-aal lagu isweydiinaya weeyaan. positive-na waa hadalkii si caadiga cidna su-aal maad weydiinay laakiin hadal caadi baad sheegaysa. Ahmed has been going home. Ahmed gurigu tagay. yani intaasoo dhan ba Ahmed gurigun buu tagay weeyaan. oo yani in guriga taga dee ma joojinayaba yani ficilka gurigun buu tagay ama 10 sano guriga tagay ama inta doonu tagay badee ama ilaa shalay buu guriga tagay saasoo kale weeyaan. marka haas baa socotay meesha haastii baad horreysiinaysaa. biinta iyada ma taabanaysid biintu halkeedii ba iska oolaysaa iyadu. laakiin labadan baad kala wareejinaysaa haastan iyo Axmedka baad kala wareejinaysaa waayo Axmedku waa subject soo maaha auxiliary-ga iyo verb-ka baad kala horreysiinaysaa. biintani iyada ma taabanaysid halkeedaas iska oolaysaa saddexaad kaas saddexaad biskaanaysa iyadu. marka haas Ahmed been going home bay noqonaysaa. Axmed ma gurigun buu tagay intaasoo dhan yani waa sidaa. marka auxiliary-gu haas buu ahaa haaskii baad subject ka horreysiinaysaa calaamad su-aal loo raacinaysaa. tanna waxay ahayd they have been helping my mother. hooyaday bay caawinayeen intaasoo dhan hooyaday bay caawinayeen. oo ilaa imkana waa wax socda horena waa caawinayeen imkana way caawinayeen yani wey. marka waa present perfect continuous weeyaan. marka haddaad aragto haastaasi meel ay ku jiraan oo biintaasi ku jirto oo ficilkuna ing wato markaa maxaad iska garanaysaa in laga hadlayo present perfect continuous. marka have they been helping my mother badanaysa. have to auxiliary bay ahayd halkan waxaa subject day baa subject have to waa auxiliary subject iyo auxiliary maad kala horreysiinaysaa. biintan iyada halkeedaad ku daynaysaa ma taabanaysid labadan baa la rabaa inaad kala horreysiiso. have day inaad tiraahdo ma la doonaya. markaad dafiraad ka dhigasana auxiliary baa not la raacinaya besba meel kale lama taabanayo. Ahmed has not been going home baa la odhanaya. they have not been helping my mother. Ahmed guriga muu tagaynin intaasoo dhan guriga muu tagayn ilaa maanta shalay ilaa maanta Ahmed guriga muu tagayn. they have not been helping my mother. hooyadii may caawinayn ilaa shalay ilaa maanta hooyadii may caawinayn waa saasoo kale. hooyadii may caawinayn markaad leedahay dee waxa weeyaan waa wax mar hore bilaabmo yani ilaa shalay hooyadii may caawinayn ilaa maanta waayo marka hore ahayd hooyadii bay caawinayeen intaasoo dhan. markaa dafiraadda markaad ka dhigayso auxiliary baa not la raacinaya meel kale lama taabanayo. ficilku hadduu auxiliary leeyahay marka negative laga dhigayo auxiliary-giisu baa not la raaciya. marka question laga dhigayana auxiliary baa subject laga horreysiiyayo calaamad su-aalna xagga dambe baa la keenaa bes waaba intaaba. marka waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay. waxaad u baahan tahay inaad ku yar celceliso. iminka waxaa laguu sheegay qaacidadii iyo ficilku si isku badbedelayay iyo waxa weeyaan sida loo isticmaalo tanisyada ayaa waxa weeyaan aynu qaadanay. markaasi aduu tusaalayaasha adaa keenaya yani marka qaar waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo
muxuu tusaalayaal badan usoo dhigi waaye. Tusaalayaasha adaa keenaya, ingiriisigu u badan yahay, buugtaasoo dhan ku qoran yahay, laakiin tusaalaha adaa keenaya. ficilkii haddaad garanayso wax ficilku taniska qaacidadiisii, tanis kastaba inaad dhisi kartaas formuladu maad u baahan tahay. ficilkuna si isku bedelaya ma past ba, ma present ba, ma past participle ba. ficilka wejigiisa tanis kasta waa inaad taqaanaa. Marka la doonayo haddaba present perfect continuous imika inaad samayso, yacni waa inaad formuladii garanayso. subject plus plus has ama have plus been plus ing plus object, saa inaad u garanayso. marka waxay noo hadhay afartii tanis ee future-ka ka hadlayay ayay noo hadhay. marka waa sidaa iyo isku soo noqo dambe. waxaad iga sugtaanba waxa weeyaan waa intii future-ka ahayd un bay noo harsan. marka waxa weeyaan dee aad iyo aad baan idin salaamaya.